shanta nin ee adduunka ugu qanisan. Number 1 Elon Musk. Elon Musk wuxuu dhashay 28 June 1971 waa ganacsade iyo maalgeliye. waxa aad loogu yaqaanaa doorkiisa muhiimka ah ee shirkadda SpaceX iyo shirkadda baabuurta Tesla. lug lahaanshaha kale ee xusida mudan waxaa ka mid ah lahaanshaha X Corp, Twitter iyo doorkiisa asaasiga shirkadda Boring XAI, Neuralink iyo OpenAI. waa mid ka mid ah dadka ugu qanisan adduunka laga bilaabo June 2024. Forbes waxay ku qiyaastay in hantidiisu dhan tahay 210.7 bilyan. bilyaneerka labaad waa Ben Arnault ku dhashay 5 Maarso 1949. waa ganacsade Faransiis ah, maalgeliyaha iyo ururiyaha farshaxanka. waa aasaasaha guddoomiyaha iyo maamulaha shirkadda LVMH oo ah shirkadda weyn adduunka ee alaabta raaxada. Arnault waa qofka labaad ee ugu qanisan adduunka iyada oo lagu qiyaasay in hantidiisu dhan tahay 202 bilyan doolarka Mareykanka, taas oo laga soo xigtay Forbes. Jeffrey Bezos wuxuu dhashay Janaayo 1964. waa ganacsade Mareykan ah, milkiile warbaahin iyo maalgeliyaba ah. isagu waa aasaasaha guddoomiyaha fulinta iyo madaxweynihii hore ee maamulaha Amazon, shirkadda ugu weyn ee ganacsiga ee e-commerce iyo cloud computing. waa qofka saddexaad ee ugu qanisan adduunka. Forbes waxay ku qiyaasteen hantidiisu dhan tahay 194 bilyan doolarka Mareykanka. milkiilaha afraad waa Mark Zuckerberg. wuxuu dhashay May 1984. waa ganacsade Mareykan ah. isagoo iyo saaxiibadiisa afar waxay iska kaashadeen adeegga warbaahinta bulshada ee Facebook ee 2004. sidoo kale waxa uu guddoomiye ka yahay Meta Platform, kaas oo ah madaxa fulinta iyo saamilada Controller. waana qofka afraad ee ugu qanisan adduunka. Forbes waxay ku qiyaastay in hantidiisu dhan tahay 163 bilyan doolar Mareykanka. bilyaneerka shanaad waa Larry Page. wuxuu dhashay Maarso 26, 1973. waa ganacsade Mareykan ah, saynisyahan iyo hal-abuur dhanka internet. waa mid ka mid ah aasaasaha Google. waana qofka shanaad ee ugu qanisan adduunka. Forbes waxay ku qiyaastay in hantidiisu dhan 142 bilyan doolarka Mareykanka.